bismillah meel kasta joogtaan aad baa u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan idinla wadaago hal xadiis oo ka sugnaaday nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waliba xadiis qudsi ah dhammaanteen waxaan ka calacalaa oo mar walba aan ka sheeganaa dhibaatooyin kala gedisan oo ummadda soo wajaha ilaahay wuxuu ballan qaaday qofkii subaxa hore barqada 4 ragcadood tukada oo ilaahay u tukada subxaanahu wa ta'ala inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala inta ka dambe maalinta inta ka hadhay ilaahay uu xiftinayo 4 ragcadood waa 4 ragco oo duxa ah 4 qofka tukada ilaahay dimadiisa ayuu gelayaa xubnihiisa sadaqaadka lagu lahaa oo dhan iyada ka kaafinaysa oo waduxo ilaahina irsaaqadu ku waasican culimadu waxay leeyihiin qofka laazima duxada sida xadiiska nabi sallallahu alayhi wasallam ku xusan qofka tukada kaliya waa qof awaab ah waa qof ilaahay u toobad keen badan hadaa tahay qof ilaahay jecel yahay hadaa arto qof toobad keen badan sida nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waa qof ilaahay jecel yahay hadaa tahay qof ilaahay uu jecel yahay badi inaad maalin kasta ilaahay u toobad keento oo tuko 4 ragco ilaahay baa ku xiftin ku ilaashan ku leh hor iyo gadaashaada iyo korkaaga iyo hoostaada isaga ayaa xiftinaya insha Allah ta'ala irsaaqaduna alla ku waasican sida culimada ay leeyihiin qofka duxada tukada irsaaqada ayaa loo waasiciyaa noloshiisa oo dhan baa mid waasaca u noqota wa ficlan waxyaalo fara badan aniga aan ka arkay baa jira duxada qofka duxada markuu tukado ilaahay subxaanahu wa ta'ala maadaama uu xiftinayo irsaaqadu alla u fududeeyaa qof kasta oo walaalkayga aan jecelahay irsaaqadada inay waasac noqotaan jecelahay haddaad rabto inaad noqoto qof irsaaqada waasac u tahay allana ilaashado ilaahay subxaanahu wa ta'ala dunuubtiisa dhaafo tuko 4 ragco intaan duhurka la gaarin 4 tuko waa 2 iyo 2 duxadu waa 2 iyo wixii ka badan laakiin 4taas nasku ku soo arooray tuko ana noqona qofku ilaahay doortay qofkaas la tilmaamay ilaahay baa doortay 4 ragco ee la sheegay ilaahay baa doortay noqo mid wuxuu alla doortay la doorta adigana aad noqotid mid la doortay mahadsanid beeshka follow sar insha Allah ta'ala youtube kana subscribe insha Allah ta'ala si share garawaraha kala gaarsiin guuleyso salaam alaykum